fashilka xiriirka lamaanaha way farabadan yihiin waxyaabaha sababa inuu fashil ku yimaado xiriirka ka dhexeeya lamaanaha raba inay mustaqbal samaystaan. Waxaase ka mid ah waxyaabaha fashilka keena waa kuwan soo socda. Lambarka koowaad, waxa ay sameeyaan xiriir labada toddobaad ee ugu horeysa waxa ay aad u xiiseynayaan qofka la socdaan ilaa ay ka gaaraan heer ay ka tagi waayaan. Lambarka labaad, labada toddobaad ee xiriirkooda ugu horeysa waxa ay yihiin lamaane kuwa ugu wanaagsan, qof walba wuxuu iska dhigaa qaali ama boqor. Lambarka saddexaad, isla labada toddobaad iyo maalmaha xiga qadka kama baan xitaa way isla dhafraan ilaa ay isla gaaraan heer ay kala tagi waayaan. Lambarka afraad, isla labada toddobaad waxay iska dhigayaan dadka dunida saaran kuwa ugu fiican uguna jecel iyo naxariis badan qoys iyo reer jecel dartiis xitaa reeraha ayay iswareystaan. Labada toddobaad kadib maxaa dhaca? Lambarka koowaad, waxaa bilowda in qofka kale salaanta ka sugo. Lambarka labaad, qofka kale inuu wiitaan ka sugo. Lambarka saddexaad, qofka kale inuu dhaho bal ii sheekay. Lambarka afraad, waxaa bilowda mashquul ayaan ah isug. Lambarka shanaad, waxaa bilowda kala shaqayn iyo isfiirfiiris. Lambarka lixaad, ugu dambeynna waa lagu kala tagaa. Haddaba muxuu noqon karaa halka ugu habboon ay ku midoobi karaan lamaanaha oo xiriirkooda humaaday? Lambarka koowaad, marka hore shukaansan qof aad waqti dhimis ula shukaansanaysid. Ogow waqtigu waa muhiim, qofka aad ku biinayso muhiim ku noqdo. Lambarka labaad, qof haddaadan ka helin sheekada ha u dheeraynin oo waqtiga adiga yuusan kaaga lumin, qofkana yuusan waqti uga lumin ee si aad wax uga sheeg. Lambarka saddexaad, wajibeddelka waxaa ka wanaagsan toosnaanta, xiisaha waxaa ka fiican dhabo hadalka, sidaa darteed qof aad ka hayso dhihi doontid jeel ama xiriir ha la wadaagin. Lambarka afraad, adigoon guur ama mustaqbal diyaar u ahayn ha samaynin xiriir, qofna niyadda ha ka soo ridin oo ha oran waan ku jecelahay ama waan ku rabaa. Lambarka shanaad, hal qof u koobnaaw oo isku dul shukaansan dhowr qof haddaa tahay ruux dhowr qof isku dul wada adigana u adkayso haddii sidaas oo kale lagugu sameeyo. Lambarka lixaad, ugu dambeynna mid ashar ka barta waqtiyadii hore aad u soo martay si aad ugu dhaganto xilliyada kugu soo aadan. Ugu jecelka ma fashilmo, balse waxaa fashilma waa xiisaha xiriirka beenta.